maamulaha guud ee dugsiyada Cigaal Schools oo macallimiinta kala duwan ee ka howlgala dugsiga Cigaal sida primary-ga, intermediate-ka iyo secondary-ga oo furay tababar kor loogu qaadayo heerka aqoonta macallimiintaasi waxaana lagu qabtay gudaha jaamacadda Timacad University ee magaalada madaxda gobolka Gabiley. Dugsiyada Cigaal ayaa ka mid ah dugsiyada sameeyay horumarka waxbarasho ee gobolka Gabiley tan iyo intii la aasaasay waxaana lagu xasuustay in soo kordhiyeen arday aqoon leh oo lama jeeran karo heerka aqoonta ay leeyihiin. taasina waa ta u saamaxday macallimiintan tayada leh inay soo saaraan arday sida shamaca u iftiinta. waana dugsi nasiib u helay inuu ka mid noqdo dugsiyada ay macallimiintooda khabiiro kala duwani ay kor u qaadaan xirfadda aqoontooda iyo waayo aragnimadooda si ay usii horumariyaan adeegga waxbarasho ee dugsigani. waxaana ugu horan hadalka iska daba maray maamulaha guud ee Cigaal Schools Cabdiwahaab Jaamac Cumar dhinka akademiga jaamacadda Timacad gudoomiyaha waxbarashada gobolka waxayna dhammaantood xuseen muhiimadda uu tababarkani u leeyahay macallimiintani. gudoomiye halkan maanta waxay nala fadhiyeen macallimiintii dugsiyada Cigaal badankoodii ujeedada halkan aan isku nabadna maanta waxa weeye waa aqoon kororsi. inka sababa waxa soo dhigtay macallin uu yahay waa aqoon-yahan laakiin maanta waxa weeye waxaan u arkay in laga maarmaan tahay in aqoonta kulley waqtiyada qaarkood waxa jirta marmar dee qofkii uu sira dhigtay in lagu sameeyo refreshen. waqti koowaad waxa weeye marka maadaama mas'uul uu macallinku yahay hawsha waxyaana ay tahay 10 uu bulshada inuu ardayda wax u dhigo ama ardayda wax u baro ama u barbaariyo ay tahay in wixii dhaliila uu iska ilaaliyo. dhaliishaasi waxa weeyaan matalan uu macallinka ka muuqata waxay saameyn ku yeelan doontaa mustaqbalka ardayga aan gacanta ku hayno. marka waxa weeye waxa kulley maadaama aynu nahay iskuul soo koraya seminar kii koowaad ee noocan aynu qabanay weeyaan ilaahay ka rajeynaya in seminaarro kale oo sano kale ay noo socon doonaan aynu isku qiimeyn doono aynu ku samayn doono bal nidaamkaas waxa weeye aynu bilownay dekeena waxa weeye sidii uu fuliyay iyo keena waxa weeye kulley toolad bal hada wali de aan la qabsanba waynu sarki doonaa kulley waynu waa hor waynu wada taaganahay. marka waa xasuusin weey halkan macallimiinta de trainerska halka ka yimid waqtigoodii qaaliga soo huray gudoomiyihii iyo waxa weeye isku duwihii waxa wasaaradda waxbarashada ee gobolka halkan jooga maanta hawsha jaamacadda Timacadna waxa weeyaan iyadana waxa weeye halkan ugu mahad celinayna maadaama ay siisay facility-ga aan isticmaalayno waxaan ilaahay ka rajeynayaa hawsha maanta la isku yimid noqoto mid midna aqoon la'aan idinma hayso halkan aqoon la'aan idinma keenin waxaan adiga sidee ilmaha qaabka aad ugu gudbinaysaa noocuu yahay teaching and learning methodology weeyaano qofku aqoontii maadadan uu lahaa habkii uu tabinayay weey warshad wax soo saar weey wuxuu soo saaraa dad aqoon leh aqoontaasoo maskaxda macallinka ka tuujisantay oo ilmaha u gudubta inta inoo soo diyaarisay programkana ilaahay hadafka uu leeyahay ee aan macsi ilaahay ku dheerayn ha u hirgelin. kadib weerarihii ibafurka tababarkani waxay si toos ah macallimiintaasi u bilaabeen tababarkoogii kaasoo ay bixinayeen 3 khabiir oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka. communication orderly waxa la yiraahdaa waa interactions between the learner, the teacher and the learner. waa xiriirka ka dhaxeeya al-muallim wal mudarris wa tulab al-mudarris wa tulab. هذا هو most important. تيجي لأنه مرة هذا قاعد وتقول يوصل. فوائد كلية لا وكينو شيء بخسارة. طبعاً كوادر حاسس عندك الدنا. أول ما كان objectives كيسية أجل كيو في الاستقلال كان هو كهذا الوزارة خلاص صباح السما كان ليس بلانكا. ليس بلانكا كل يوم ضرب ما كيس بيسيب objectives كانوا بيجانا يوم ترى. الكورة لين كان مهمة. هو وقت teaching learning process مش كبرين. وكان teaching كان learning كبرين. بس learning كان teaching كبرين. والله هو رصوصه هل مرة وضع عين. هذه إنه واحد دقيقة أرضي إنه واحد دقيقة هل مرة وضع عين. ويان لحاتي وربعين تقرنكا مقالة قبيلي إحرمت قبل كقبيلي.